observant mind waxaa waaye cunuga everything intuu yaryahay everything oo agagaarihiisa ee environmentgiisa in uu cunugaas uu aruursado uu noqdaan hadhowdii later on ee noqdaan personalitygiisa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kusoo dhawaada channelkeyga iyo video cusub. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo Montessori wuxuu yahay. haddaadan horey u maqlin iska bara maanta insha Allah waxaan ka hadlaa waxyaalaha important ka oo ku saabsan Montessori. like Montessori dhanka ma wada hadli kari liano like the more baratid the more wax cusub ka baratid. anigana personal waxa qof hadda baranayo so waxaa jeclaysta wixii aniga aan bartay in aan idin la wadaago. waxaan rajeynayaa in wax ka faa'iidaan. also everything in videogan ooga hadlayo waxaa waaye course qaatay oo gabar muslimad dhigto oo online aan ka qaataa. so coursekeeda more waxa oo aan ka hadlayo aan kasoo diyaariyay. marka waxaan rajeynayaa inaad ka heshiin. so Montessori maxaa waaye? koodi waa inaan ka hadalnaa Montessori wuxuu yahay. Montessori waxaa waaye system oo waxbarasho oo sheeg ama si oo cayaalka lagula dhaqmo philosophy oo ku dadaasho cayaalka in waxay ayaga interest gareynayaan more kala lagala dadaalo dan waxa oo parentka ama qofka macalinka expect gareynaya cunuga inuu sameeyo inay lagala dadaalo. so codekan everything oo like sheegayo dhamaystirayo Montessori. It's a system of education that seeks to nurture and develop the child's natural interest and activity in order to unlock great wisdom. waa system oo waxbarasho oo ku dadaalo inuu kobciyo cunuga waxa uu jecel yahay waxa uu cunuga rabo inuu sameeyo. لأنه إلهي naturally cunuga bini'aadanka wuxuu waxa uu noqonayo already qof kasta wuu haystaa laakiin wuxuu u baahan yahay potentialkiisa si uu gaaro inay lagala dadaalo specifically waxyaalaha isaga uu innerkiisa oo like baahi u qabto ama uu rabo inuu sameeyo. marka inta mareen waxaa laga yaabaa as a muslim inaa ku fikirtid ama isdhahdid okay cunugeygu wuxuu jecel yahay wax oo dambi inuu waxaas uu rabaa inuu more barto ama uu maxal dhihi jira career ka dhigto. horta cunuga markuu yar yahay waxaa jirto insha Allah waa ka hadleynaa wuxuu ku jira observant mind. so observant mind waxaa waaye cunuga everything intuu yaryahay everything oo agagaarihiisa ee environmentgiisa in uu cunugaas uu aruursado uu noqdaan hadhowdii later on ee noqdaan personalitygiisa. so anything oo diiniyan oo qalad cunugaaga intuu yaryahay waa in oo u sameysid lines oo clear oo waxaan qalad waaye there is no way waxaanoo kale mala sameeyo. marka cunuga hadduu adiga kaa arko oo environmentgiisa uu ka arko then later on waxaas ma ku fikirayo. laakiin haddii oo cunugaaga adiga aadan korinoonin oo more ay ku korinayaan ama daycare ama school oo muslim ahayn obviously cunuga interestgiisa hadhowdii wuxuu noqonayo waxaa keenaysa because of the environment uu kusoo koray markuu yaraa. marka intuu cunuga observant mind ka haysto waxaa laga faa'iidaystaa waxyaalaha badankooda inay markaas oo lagu install gareeyo maskaxdiisa. marka as a muslim waxyaalaha oo qalad oo oo diiniyan ilaahay uu rabi oo xaraam waa inuu cunuga clear maxal dhihi jira clear lines inay loo sameeyo markuu yar yahay. taas markaa ka gudubno but anything else oo maxal dhihi jira isheeg oo cunuga oo markaas markii waxaas oo like liano waa Montessori waxaa waaye freedom with limits.
freedom kaliya cunuga ma iska haysto like freedom oo kaliya malaha waa inuu limit leeyihiin freedomka liano hadiisan adduunyada aysan lahayn waxyaalo oo biniaadanka waxa ka celinayo dan way adag tahay biniaadanka nafsiyan inuu isaga iska celiyo so waa inay limits leedahay freedomkaas marka taas halkaas uga tageena marka waxayna oo Montessori oo uga fiican tahay noocyada kale oo cayaalka wax loo baro waxaa waaye liano cunuga waxay moor ka saacideynaysaa wax ilaahay uu already siiyey inay moor oo ma arkino wixii cunuga oo waqti lagu geliyo waxaas uu jecel yahay uu ilaahay uu siiyey marka taasna waxay u fududeynaysaa cunuga wixii inuu barto liano waxaad jeceshahay iyo waxaadan jecleen moor waxaa si fiican u baran kartaa waxa aad jeceshahay waxaa jira waqtiyaal oo la dhaho sensitive periods so sensitive period kasta cunuga markuu ku jiro uu moor si fiican waxaas u baran karaa dan markuusan ku jirin marka taas another topic waaye hadda Montessori waxaa dhahan Montessori waxaa waaye system oo waxbarasho oo cunuga oo ku dadaasho in ay kobciso wixii ilaahay siiyey oo isaga interest gareynayo intaas kaga bixina also markii waxbarasho la dhaho waxbarashada waxaa loo baahan yahay inay kaafiso 4 qaybood qaybta koowaad waxaa waaye physical spiritual qofka spiritual kiisa I don't know Somali spiritual wax lagu dhaho laakiin wax oo ku saabsan diinta waaye ama maxaa la dhihi jiray makasay diinta wax oo ku saabsan waaye so inay horta cunuga diintiisa iyo spiritualkiisa laga dhisaa koodii markii laga dhiso waa inay waxbarashadaas ka dhistaa the second one waxaa waaye waa inay waxbarashadaas ka dhisi karto physicalkiisa liano physicalka wuxuu ka saacideynaya cunuga wuxuu qabsan lahaa independent inuu noqdo all of that movement cunuga u baahan yahay intuu yaryahay so the third thing waxaa waaye emotional cunuga waa inuu awoodo inuu controli karo emotionkiisa Montessori schoolskana usually ama Montessori method haddaa isticmaalaysid usually waxay ku focus garaysaa cunuga inii la baro emotionkiisa inuu controlo waxaa la barayaa emotionska kala duwan waxaana la barayaa emotions inaa haysatid inay caadi tahay laakiin emotionskaaga because of emotionskaaga inaad dad kale oo affect u keentid ama wax ku samaysid qalad waaye ama environmentig wax ku samaysid so cunuga haduu ooyo waxaa leeyahay caadi waaye waa oon kartaa emotion caadi waaye emotion waa yeelan kartaa waa xanaaqi kartaa laakiin haddaa xanaaqdid xanaaqaagaas maxaa la dhihi jiray ama qof wax ma ku dhufan kartid ama wax ma tuuri kartid laakiin waa xanaaqi kartaa marka emotion controller waa la barayaa emotional controller la baraa cunuga and also the last one oo social cunuga socially moru kaga dhismanaya dan iskoolada kale why because Montessori schoolska usually waxaa lagu dadaalaa 3 years difference cayaalka inay yihiin galaaska like 0 to 3 hal galaasaa la geenaa maxaa la dhihi jiray 3 to 6 waxaa la geenaa hal galaas 6 to 12 waxaa la geenaa 7 to 12 waxaa la geenaa hal galaas so marka cunuga cayaalka markay different ages ee galaaska ugula jiraan waxa oo like waxay baranayaan different ages sida lagula dhaqmo sida lagula hadlo also hadaa oo ama macalimad aheyd ama cayaal oo kale age oo haysatid waxa ogtahay in cayaalka moor wax ka maqlaan cayaalada oo cayaalada xogaa ka waaweyn dan dadka waaweynka taasna
like لأنه ayagoo still oo cayaal isla but at the same time way isfahmayaan. In my opinion, I think so. Markii oo iskula jiraan galaaska, cunugan weynka markuu material uu barto uu ma arkino uu master gareeyo, then cunugan kale oo yariska markuu oo waxaas hadda la baray wuxuu help ka qaadanaya cunugan kale. Cunugan kale like wuxuu leeyahay allah markii kow aniga kaas bartay saas like you know maxaa dhihi jiray communication kooda like wuu ka fiicnaanaya cayaalada kale oo the same age schools ka لأنه the same age cayaalka wax ma isdhaamaan cayaalka. laakiin cunugan markuu age kan already ka baxay waxyaalaha cunugan kale uu marooyo wuu fahamsan yahay like wuu u sheegi karaa maxaa dhihi jiray. laakiin cayaalka the same age ka like wax ma isdhaamaan, if that makes sense. So socialina aada uga dhisaan, spiritualina maxaa dhihi jiray Montessoriga runta waxaa waaye in uu physical aspect ku jiro iyo spiritual aspect ku jiro. So marka haddii sometimes it's easy in marka aragtid shelfyaasha sida loo dhigay alcaabta cayaalka ay ku cayaarayaan, cayaalka how focused ay yihiin marka aragtid, it's very easy in oo aspectigaas ku fikirtid than the spiritual. but laakiin labadaas haddaysan meesha yaalin Montessori sax ma haysatid. so marka anaga as a Muslim ahaan spiritual ama diintii inay cunuga la baro waxay noogu tahay is very important, especially hadda taamiyada lagu jiro. cunuga hadduu isagoo yar uu ka dhisan yahay diinta uu ogyahay wrong from right, then cunugaas hadhowdi markuu weynaado there is no way dadka markuu arko wuu la yaabaya. at the same time markii anaga oo diin ka fikirno ama diin ka hadalno usually maskaxdeena cunfiya soo galaayo ama in cunuga oo wixii lagu qasba iyo everything. ogow cunugaaga intuu yar yahay hadduusan environmentigiisa ka heleynin wax like oo tusinayo diinta muhiimadiisa and everything, then hadhowdi muhiim uma noqonayso. laakiin haddii oo adiga tahay wixii cunuga rabtid hadhowdi inuu noqdo, it's very easy cunugaas inuu oo maxaa dhihi jiray isheeg aada u haysto diintiisa. ilaahayana dadka hadeeyo like marmar waxaa laga yaabaa environmentiga cunuga uu kusoo koray inuu oo diin ahaaba, laakiin later on uusan ku adkaanin. marka taas ilaahay hidaayadiisa waay. laakiin the general thing waxaa waaye haddaa cunug rabtid inuu ama diin barto ama spiritually uu ka dhisnaado, waxa u baahan tahay adiga spiritual training, spiritual journey inaa soo martay sida Maria Montessori dheheyso. maxaa dhihi jiray laba kooda ni sheegaya, mid Soomaali ahaan idinkugu sheegaya, midna English ahaan nigu sheegaya oo Maria Montessori dhahday oo ku saabsan spiritualka. the first one waxaa waaye waxay dhahday haddaa cunug waxbarasho geysid ama waxbarasho aasiisid oo ka maqan tahay waxbarashadaas ay ka maqan tahay spiritual aspect ay ka maqan tahay, then maxaa la dhihi jiray waxaa sameysay qalad weynaa gashay. waxay dhahday to deny the religious sentiment in a man and to deprive humanity of the education of this sentiment is to commit a pedagogical error. marka Maria Montessori waxaa waaye qof oo Kirishtaan iyadaana saas dhahday. anaga oo muslimiin oo nabiga calayhi salaatu wassalaam uu nagula dardaarmay oo cayaalka oo markay dhashaan fitra ay haystaan ilaahooda ay ogyihiin, laakiin oo environmentigooda ama waalidkooda especially waalidkooda
ay ka dhigayaan ama masiixi ama maxaan dhihi jiray ishig muslim. So marka waa inay anaga more important noogu noqoto. So ani personal opinionkeyga waxaa waaye haddeeba waxbarasho jirto oo ku dadaaleyso in cunugii diintina ka dhisto maxaan dhihi jiray dunyaawigiisana ka dhisto, that will be the first thing aan ku fikiraa inaa cayaalkeyga ugula dhaqmo. And also because haddii oo hataa aa isdhahdid sometimes waxaa laga inaa isdhahdid the process oo Montessori waxbarashadeeda is very slow, laakiin realityga waxay tahay even though sometimes it looks slow but laakiin maxaan dhihi jiray waa wax oo markuu cunugii uu barto waxyaalaha badankooda markuu barto wax oo weligiisa la soconayo, waa wax weligiis uu heesanayo waaye. Weligaa everything oo fiican easy ma aha, marar badanna waa dhehe everything oo xun easy waa, laakiin everything oo fiican easy ma aha. Hadda for example cunugaaga hadduu qalad sameeyo, haddaa ugu qaylisid ama dishid is solution oo instant waa isla markii waxaa arkaysaa oo cunugii wixii uu ka tagaya. Laakiin markaa la fadhiisatid oo u sheegtid waxaa laga yaabaa hadda ku dhahday 3 minutes kadib ama 2 minutes kadib inuu wixii sameeyo. That doesn't mean in wax qalad sameynaysid. It means cunuga waa inaa ku celisid. Waxaa jirta meelaa ka dhageystay waxaa la dhahay 1,000 jeer waa inuu cunuga inaa wax ugu celisid in order uu maskaxdiisa gasho uu wixii fahmo. So markii isla markii uu qaylisid oo isla markii cunuga iska daayo wixii ma fahansano laakiin wuxuu reactionkaaga ahaan waxaas u daayay. Marka taas halkaas kaga tageena marka since aan kasoo hadalnay Montessori iyo Montessori wuxuu yahay philosophy waaye. Waxaa ka hadlaynaa qofta oo soo asaastay Montessori, Maria Montessori waxay ahayd dhakhtaradii ugu horeysay Italy waqtigeeda. Waxay ahayd Italy dhakhtaradii ugu horeysay. Gabdhaha lama ogoleen in ama shaqeeyaan ama university ma aadi jirin, iyada ugu horeysay. So markii dhakhtarnimada ay dhameysay waxaa looga dhigay agaasima, waxaa looga dhigay meelaha cayaalka oo xanuunsan, iskoolada cayaalka xanuunsan lagu haayo, waxaa looga dhigay agaasime. Markaas waxay notice gareysay since iyada ay dhakhtarnimo baratay, waxay observe gareysay cayaalka in markay cuntada cunaan, rootiga markay cunaan inay qabsanayaan gacmaha ku taataabanayaan. Waxay ogaatay in cayaalkan u baahan yihiin sensory stimulation inay helaan. So marka waxay aqrisay falsafayaashii oo waxbarashada oo ka horeeyay buugagtooda aqrisay. Marka waxay bilowday cayaalka inay ugula dhaqmanto waxyaalihii ay ka baratay falsafayaasha ka horeeyay iyada. Markaas markii wixii implement gareysay cayaalka sidii wax u bartay xoogaa kadib cayaalka imtixaan waxay la galeen cayaalada u caadiga. Imtixaanka markay galeen cayaalka imtixaanka waxay keeneen same as cayaalka kale. Then markaas waxaa la dhahay like dadka badankooda way yaabeen laana cayaalkaas waxay ahaayeen cayaalo oo maxaa la dhihi jiray isheg laga sugayninba inay wax bartaan oo like liskaga niyad jabay. Cayaal xanuunsanay ahayn, lagama expect gareynayn inay wax bartaan. Markaas waxay dhahdeen haddii cayaalkan oo xanuunsan ay waxaas keeni karaan, cayaalka caadiga waxbarashadooda waxaa ka qaldan, liano cayaal fiican since ay yihiin cayaalkaas waxay ahayd more than cayaalkan kale inay keenaan. So marka waxaa la dhahay okay cayaalkan wax bartay ma aho, okay waxaa ku keenayna 50 cayaal waxaa loo keenay oo cayaalo oo wax la barin oo dhib badan oo like oo la tarbiyeeninba oo la iska sii daayay oo waalidkooda oo moor shaqeeyaan oo la joogin.
markaas konton cayaala loo keenay. kontonka cayaal markaas waxay iskoolka ugu horeeyay oo Montessori oo la furo. iskoolkaasna waxaa la furay 1986 maleena. waxay ahayd markii oo loo dhiibay maxaa la dhihi jiray agaasimaha looga dhigay iskoolka cayaalka xanuunsan. 1907 waxaa loo keenay kontonka cayaal si ay wax u barto. since 1907 waxaa loo keenay kontonka cayaal si ay wax u barto oo la tarbiyeenin oo waalidkooda iska sii daayeen oo dhibka badan. then markaas waxay furtay iskoolka ugu horeeyay oo Montessori oo waxaa la dhahaa Casa Bambini oo maleena, waxaa laga wadaa children's house cayaalka laga wadaa. so kaasa ugu horeeyay. markaas waxay bilowday in observe gareyso cayaalka materialskan ay soo saarto. then markay dadkii arkeen in cayaalkii ay kasoo saarta cayaal oo waxbarashada kusii jeedo oo ma arkino fadhiyo oo dhibka iska joojiya. markaas iyadan waxay bilowday in dadka kale train gareyso macalimiinta kale. and then koodka waxa ay observe gareysay markaas waxay ahayd in maskaxda la socoto gacmaha. sida ogtihiin markaa wax rabtid inaa xifdisid usually hadaa qortid is easier like inaa oo wixii fahantid dan markaa oo just iska aqrisid oonan qorin. lianna waxay dhahday gacanta iyo maskaxda way isla socdaan. ilaahayaa bini aadamka u sameeyey. koodka dhahdayna waxaa waaye waxay dhahday the path to intellectual development is through the hands. so maxaa la dhihi jiray that was her first observation maxaa la dhihi jiray Maria Montessori. and then after that dad badana isticmaaleen ilaa hadda waxaa kasoo wareegatay waqtiga iskoolkaas la furay 111 sano. so marka waxaa rajeynayaa in soo summarize gareeyay everything oo ku saabsan Montessori iyo naagta sameysay Montessori method oo Maria Montessori. so insha Allah haddii aad rabtiin courseska qaadanayo oo ku saabsan Montessoriga waliba the Islamic Montessori gabadhan ay ka hadasha maxaa la dhihi jiray gabar muslimad waaye. haddaa rabtiin insha Allah commentiga hoos igu reebo waa u baahanahay oo course-ka magaciisa. then linkigaan soo diraya si aad kaga faa'iidaysataan insha Allah. waxaan rajeynayaa videogan inaa wax ka faa'iideen. haddii aad ka hesheen like saar, haddii aad maxaa la dhihi jiray rabtid more videos oo saan oo kale subscribe saar. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.